قبيل كاد كاكرا مجو يعني شيقال يدر markii la yiraahdo waa dadka dad diinkaadu ku dhawaay kitaabadiina ku lahaa kitaabadii fiiriya sababtu waxa waaye yani haddii aad ogaan lahaydeen magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug 24 saac ee la soo dhaafay waxa lagu dilay dhakhtar si weyn loogu yaqaanay magaaladaasi kaasoo la sheegay in dilkiisu uu la xiriiray aanooyin qabiil haddaba muuqaalkan kooban waxaan rabaa inaan fariin ugu diro labada beelood muddooyinkii dambe yani isku sameynayay wax ka baxsan xeerarka dagaalka magaalada Galkacyo taariikh ahaan waxay soo martay dagaalkii la yiraahdo Afqiyaam waa dagaalkii ugu dhimashada badnaa ee laba beelood ee Soomaaliyeed ee waliba wada deegaansan dhex maray alxamdulillah rabbil caalamiin hadda way wada degan yihiin qabiil ka adkaadani ma jiro shiiqaal iyo maxay ahayd tubdir oo hadda min hal dhaftar iska maray waxaan rabaa inaan iraado waxa tusaale idinku filan dagaal magaalada hadda aad ku dagaalamaysan ee Galkacyo dagaalkii Afqiyaamo ee Sacad iyo Majarteen dhex maray ayaa ka dhacay waxaad ogtiin taariikh ahaan inta dad ee ku dhimatay ilaa haddana qabiil ka adkaaday Majarteenna ciduma sikin Sacadna ciduma sikin cid hadda deegaan laga sikiyay oo leeyahay qabiilkaas dagaalkaas looga adkaaday haba yaraatay ma jirto adika maanta marka 2025 inaad dhaqaatiirtii iska dishaan يعني waa aad u foolxun waa mid kale xataa dagaalada qabiilku hadda Soomaali caadiyan wax bijooleed way dhici jireen laakiin in magaaladii yani colaad u soo gasho oo dhaqaatiirtii saameeyo oo culimadii saameyso oo yani dadkii birimagidada aan waxa shaqada ku lahaynba halo miyigan isku diri jiray hadda waxa muuqata in magaaladii soo gashay yani waa tilaabo foolxun waay waxaan ku baaqayaa qabiil ka adkaa kara ma jiro يعني شيقال يدر markii la yiraahdo waa dadka dad diinkaadu ku dhawaay kitaabadiina ku lahaa kitaabadii fiiriya sababtu waxa waaye yani haddii aad ogaan lahaydeen yani haddaad ogtihiin in qabiil ka adkaan kara intuu raba la ekaado aan u jirinin waxaa idin rabaa inaad nabadda qaadataan wada nolosha qaataan oo aad wada noolaataan waayo Sacad iyo Majarteen cid ka dagaal badneed oo gaalka ay ku dagaaleen ama Soomaalida guud ahaan 18 gobol ee Soomaaliya dagaalka Sacad iyo Majarteen dhex maray cid uu dhex maray ma jirto maanta waa ogtiino qolana koonfurtay am hay'atu nidaamkooda ka shaqeeya qolana waqooyiga ka shaqeeya way wada degan yihiin waa isdhex maraan waa isdhex ganacsadaan waa isguursadaan waa wada nooliyeen markii way ogaadeen qabiil ka adkaan kara ama qabiil reexi kara oo hal mitir ka tuursan kara inaan u jirin ilaa intii ay dagaalamayeen bartii la wada deganaayeen hal mitir qabiil laga sikiyay ma jiro sidaa daraaddeed marka waxaa laga rabaa adinkuna inaad nabadda xaggeeda aadaan barkay shiiqaal iyo dir hadda markii la yiraahdo mudugay degan yihiin يعني waliba markii caadiyan la yiraahdo waa laba qabiil oo aan yani dagaal lagu aqoonin waa markii 2025 yani ay indhihii bulshada iska laayaan يعني hadday hadda iska qabanin waxa ku tiin culimada iska dilaan iskuuladii macallimiintii dilaan xaafadihii iska dilaan yani isisifeen ugu dambeeyna xal isku imaanay markii qolo dhamay kartaa ma jirayso intaas raba inaan ku soo gabagabeeyo maxay ahaato maamulada ka jira galmudug iyo Puntland mas'uuliyada saaran dadkaas yani عوام حولها أو إنديه بشدة تقاتيرتي إسكالينيسا إني وحن ربع تلاوة كقادان وحن هبدأ يعني هلاي حقتها اخترت حال الدلي يلا أنت أصاب كان أنتوا شنتوا كجرا الدلي أنا مال كتم بيسو اللي أدلها أو عبر لها نبى ثالث كسكتشر تاعي ما شفتوا dadkaas markuu waxa laga rabaa maamulada meesha ka jira Galkacyo Puntland iyo Galmudug inay doorkooda qaataan dadkaas yani colaad miyi ka soo raray ee magaaladii soo galiyay inay tilaabo ka qaadaan laga rabaa aad iyo aad ma santiin